ugu horreyn waa salaamaya saxaafadda madaxa bannaan ee reer khaatumo meel kasta ay joogaan. salaan kadib waxaan rabay inaan laba qodob si kooban uga hadlo. qodobka koowaad waxa weeyaan qodobkii imtixaanaadka shahaadiga ahaa 2012 2013 imtixaankaas runtii waa ku guuleysanay alxamdulillahi rabbil caalamiin. wajiyadii kala gedisnaaye uu soo marayna waxa weeyaan si fiican baa loogu guuleystay. guud ahaan ardaydii reer khaatumo ee gashay imtixaanaadka isbeshal kuwilaas canood ka yimina waan u hambaliyeynaynaa. cid kasta oo gacan ka geysatay mashruuca isagana waa u hambaliyeynaynaa. qodobka kale imtixaanaadkaas shahaadiga ahi wuxuu ahaa dagaal lagula dagaalamayo somaliland oo xabadda ka runtii waa guul iyo runtii waxqabad weyn oo loo qabtay dhallaanka reer khaatumo iyo siyaasiyan jiritaanka khaatumada. muhiimadda jirta waxa weeyaan fayska u dambeeyay imtixaanaadkaasaa noo haray oo sixitaanka ah. insha allahu biidnillahi kariimna waxaanu bilaabaynaa subaxa sabtida ee 29 bisha 6 ilaa 12 bisha 7 natiijadana soo dejin doona insha allah. arrinkaas si guul ah oo runtii digtooni leh buu noogu dhammaaday. intaa noo hadhana insha allahu biidnillahi kariim saas bay u dhammaanaysaa. in allaaliya intii ka qayb qaadatay waxa weeye halkan uga mahadcelinaynaa. qodobkaas intaas baan ku dhaafi lahaa. dacaayadaha iyo runtii mishinada somaliland soo dirsatay imtixaanaadka shahaadiga lagu hayay ama lagu samaynayay ama haddeer la daba joogana waxa weeyaan cid ay wax ka tari karaan haba yaraatee ma jirto. somaliland waxay soo dirtay dadyo fara badan oo kala gedisan oo imtixaankaas fashilinayay ama dacaayadaynayay ama daba joogay ama rabay inaanay qabsoonin. waxaasoo dhan waanu kaga guuleysanay. dad sharwadayaal ah oo runtii kala gedisan baana barnaamijyada waday waanu kaga guuleysanay insha allahu biidnillahi kariim. waadna aragtaan oo qofka mustaqbalka carruurta ama dacaayadaynaya ama wax ka sheegaya inuu yahay dad u shaqaynaya shisheeye. intaas baan ku dhaafaya. qodobka labaad aan ka hadlaya waxa weeyaan shirweynihii xilligii loogu talagalay buu dhacayaa. meeshii loogu talagalay ee xaruntii kumeel gaarka ee talex waan ka qabsoomaya. wararkan laysla dhex maraya laleeyahay ciidan baa tegey ama puntland baa tagtay talexna wax allaaliya wax ka jira ma jiraan. dad bay ahaayeen si tuugaha usoo galay oo deegaanka u dhashay. ha u dhasheen deegaankii waxaan leenahay waxay kusoo gabanayeen arooskaas bay yimaadeen. wax awooda haatan ay meesha kaga tari karaan ama ay ku qaban karaan ma jirto. cidda u himinigaysa puntland oo hadeerto ay kusoo hiranayaanna waxba u tari mayso. waxaan leeyahay markaas dadka reer khaatumo meel kasta ay joogaan yaan tuhun beena laydin gelin. shacabka reer khaatumona waxaan leeyahay arrimaha socda waa xilli kala guura oo annaga xukuumadayadii ay gebageba tahay. digtooni dheeraadana hala galo bal cadowga iyo kaan cadowga hayna hala kala ogaado. annaga laftiga iyaga waxa weeyaan haddii ay naga tahay waxaanu rafad iyo hadday naga tahay dadaalna waa la kala ogaanaya insha allahu biidnillahi kariim. marka aad baad u mahadsan tahay. labada qodob baan rabay saaxiibaan ka hadlo. imtixaanka waxaa lagu qabanaya insha allahu biidnillahi kariim xaruntii imtixaanaadka. marka hore waxaa lagu sameeyey meesha la yidhaahdo boocame center weeye. hadeerna iyadaa lagu saxaya insha allahu biidnillahi kariim. waa meel center oo buuhoodle iyo laascaanood macalimiinta ka imanaysa iyo kuwa talex ka imanayaba center dhexe u ah oo runtii markii horena lagu dejiyey. runtii xaruntaas baa lagu sixi doonaa insha allahu biidnillahi kariim.